Kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed ahna wasiirka beeraha iyo waraabka Maxamed Xasan Fiqi ayaa maanta xafiiska madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu ku qaabilay saraakiil ka socotay hay'adda MSF iyadoo kulankaasina ay kala qayb galeen kusimaha qaar ka tirsan labada gole baarlamaanka iyo waliba wasiirada Koonfur Galbeed. Saraakiishan ka socotay MSF ayaa horay maray u yimaadeen Baydhabo waxa ay indhayn iyo qiimeyn ku sameeyeen xaalado fara badan oo ay ka mid yihiin sida ay tahay nolosha dadka barakacayaasha, dhalinyarada aan shaqada haynin iyo waliba xaaladda hooyada iyo dhallaanka. Safarkooda maantana waxa uu ku aadan yahay sidii isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo ay uga gacan siin lahaayeen fayadhowrka hooyada iyo dhallaanka taas oo ay bukaano fara badan taasoo inta badan ay soo wajahdo dhibaatooyin dhanka caafimaadka ah tii ay u dheertahay carruurta nafaqa darro. Kulankaasi kadib waxaa saxaafadda la hadlay afhayeenka madaxtooyada Nuurudiin Yuusuf Abuukar. Raxmaan Raxiim maanta magaalada xarunta kumeel gaarka u ah dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya magaalada Baydhabo waxaa soo booqday wafdi heer sare ah oo MSF ka socda kuwaasoo indhayn badan sameeyay oo waxyaabo badan ka baarayay ama baaritaan badan sameeyay oo dalka Koonfur Galbeed ka kooban yahay gobolada. Marka waxay maanta u yimaadeen inay hooshii dhaqan geliyaan oo sidii shaqada u bilaaban lahayd sidii hawlo badan loo sameyn lahaa. Arrimaha ugu badan ee maanta ay ka wada hadleen hay'adda MSF ragga ka socda iyo kusimaha madaxweynaha iyo wasiirada guddoomiyaha degmada iyo kusimaha gobolka waxay ahayd sidii dadkan wax loogu qaban lahaa, in dadkan gargaar la gaarsiin lahaa, sidii dadkan dhibaatada haysata ee 27 sano ilaa 28 sano dhibka haystay loogu bixin lahaa. haddaan isku damqan cidna u damqanaysa malaha. Waxaan shir gudoominayay madaxweynaha kusimaha madaxweynaha ayaa shir gudoominayay. Marka waxyaabaha lagu hadlay taas bay ahayd si wax qabad dhab ah loogu sameeyo dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay inta badan isku hawshaa sidii dadkeeda loo tawaalisan mise dhibaatada haysato looga bixin lahaa. Xaduudeedana ma xirna, qof walba wax u qabanaya, hay'ad walba wax u qabanaysa iyo group walba wax u qabanaya dalkan in lagu soo dhaweeyo. Hay'addan imaanshaheeda magaalada Baydhabo ayaa la filayaa inay ka heli doonaan fursado shaqo dhalinyaro aad u fara badan oo haatan shaqo la'aan ay ku haysato gidaarada magaalada Baydhabo kuwaasoo wax ku bartay jaamacadaha kala duwan ee dalka. Mukhtaar Sheekh Aadan Dalmar, SBS TV, Baydhabo Janaa'i.